halkani waa suuqa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Suuqani waxaa lagu iibiyaa qudrad aad u fara badan ama qudaar sida aad u taqaanaanba sida yaanyada, mooska, bashasha, baradhada, ansalaatada, koostada, bocorka, bataatiga. Mar aynu la kulanay maamooyinka ka ganacsada yaanyada ayaa waxay sheegeen in yaanyadu ay maalinba si tahay ay shalay buuxday maantana ay tahay mid la la'yahay taasi oo sababtay abaaraha ka jira dalka iyo biyo la'aanta. Waxay sheegeen yaanyada waagii hore markii la abuuro in lagu waraabi jiray webiga, laakiin sanadkan webigii uu guray roobna la la'yahay. waa kuwaan qaar ka tirsan oo arinkaasi ka hadlaya tanaga yaanyada waxa ay ku kala iibsadaan. marka marna ma gadantaa yaanyada marna waa gadantaa shalida 100 kun ee maad 150 ee tagti marka xaaladeeda saas waaydo midda abuurkana meeqa gadan koob 78 kun seel oo loo qabto bocorka xabad 4 kun 5 kun abuurka si loo helo mar shala waa baasneed biriga bulwa shala waa baasneed birigay ay qaashi kontanaan gadeynaa aan dadka miskiinka aaga bixinaynaa anagana 150 aan baxsanay maxaa 150 gadaa beeraleyda jirkaanka 150 dad beeraleyda ay gadaan aye ana 180 ku gataa aye qof daayira tahay marka ma adag gato mas waalidka u iibsa waalidka u iibiya tana ganyaayada shal 100 joogi beeruna waa 150 bocorka waa 20 ana kan lagu kunana fuushalaati 2 kun 3 kun saasan aaga helnaa beeraysi asan faasana marka ma gadantaa mas way baartaa yaanyada shal waa baartay aye birigana kasto yar kore u kacdo 150 ee tagtay biriga waqaf waa ma aalimba 150 aye ruuxa 50 aye qaraaf 35 maal waa gadmay maalna ma gadmays sidayna ilma iska kursan midda abuurkana abuurku waa badan 50 maxaa ka heshaa marka maalintii maalin waa laga helaa maalin 20 la siiyo sida suuqa yaanyada oo joogo laamiga gurkiis yaanyada waxaan ku qaadnay 150 140 160 10 kun ayaan ka raadsanay ala tanag saasan ku gadanay xabad soo xilku 40 kun waa 35 kun burcada waa xabada waa 5 kun yaanyada abuurka waxaan gadnaa koombada 80 70 bocorka siinba abuurka waxaan gadnaa xamba 5 kun miraas waa xiilka maba yaal had juhur waxaana laga keenaa xamar koombadiisa waxaan gadnaa 200 xamaran boqaamo ka keensanaa abuurka maalmihii soo dhaafay ganacsatada ku nool magaalada Jowhar ayaa cabasho kala duwan ka soo dhiibanaya abaaraha saameysay dadka iyo dunyadaba abaartaasi oo beeraleyda iyo xoolo dhaqatada aad u saameysay.